magacayga waa Dr. Ibrahim Deeq waxaa dhakhtar ku takhasusay cudurrada afka iyo ilkaha. Sagaalka sano ugu dambeysay waxaa ka shaqeynaya isbitaalada magaalada ku yaalaan. Waxbarashada waxaa ku soo qaatay dalka Yemen. Muddada oo fieldigan ku jiray mise dentistaha waa 15 sano ugu dambeysay. 6 sano oo waxbarasho ah iyo 9 sano oo shaqada ah. Caqabadaha lagala kulmo hawshan marka lagu jiro waxaa ka mid ah dadka isku mid ma aha, waxa uu shaqeynaysaa waayeel iyo cunug yar oo shaqeynaysa marka isku mid ma aragtay ugu shaqeyst mar walba ku qasban tahay oo qanacsid bukaankaaga. sidoo kale caqabadaha oo fieldigan dentistry ku aragno waxaa ka mid ah inuu bukaanka markuu ku imaado oo mar walba sugayo dhakhtar ajnabi inuu u shaqeeyo laakiin adiga haddii xirfadda mar walba sareyso qodobkaas waa ka gudbi kartaa communication mar walbana hadduu sareeyo shaqadaada waxaa u maleeyaa ma aragtay maxaa inuu bukaanku ku qancaayo. Sida kale bukaanadana oo imaanayaan mar walba waynu mahad celiyaan shaqada u qabanno maadaama isticmaalno qalabka ugu dambeeya teknolojiyada oo magaalada yaalo waliba waxaa la simanahay dadka oo dibadda klinikada oo dibadda ku yaalaan. dadka rabaan inay xirfadan bartaan dentistaha waxaa kula talin lahaa inay sabarka badiyaan maadaama mar walba xirfad tahay oo u baahan tahay qofka inuu la qabsado mar walba sanadka koowaad mise 6 bilood koowaad ina la dhibaatootid waa shaqadan kadib ayaa gacanta la qabsanaysaa.